meertada noloshu waxa ay u kaydin doontaa jiilasha soo socda sooyaalkeenna maanta. waxaa sheeko xus iyo xiise ay ku faanaan uga dhigan in awoowayaashood ay taariikh cusub dhaxal siiyeen. waxaa guulaystay hal gandheer oo aan u galnay difaaca hantida aynu dhaxal siinayno jiilasha soo socda. wax la isdhaxal siiyana ciidda dhulka hooye ayaa ugu qaalisan, difaacna u mudan. difaaca hantideena qaran ma ahayn wax fudud markii la eego inaan nahay dad iyo dawlad la daala dhacaya duruufo aad iyo aad u adag kana soo kabanaya sanado badan oo burbur iyo dawlad la'aan ah, haddana ku shaqeeya taageerada wadaniyad iyo isku duubnida ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed, taasoo na siisay dhiirigelin iyo awood dheeraad ah oo aan ku ilaalinayno ama aan ku wadayno halgankeena. dacwadda markii furitaankeeda ay bilaabatay runtii shacabka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba in badan oo kamid ah dareen bay ka muujiyeen ayagoo u arkayay in dacwaddan aan waqtigan aan wadi karin because duruufaha nagu xeeran haday noqoto mid diblomaasiyadeed, haday noqoto mid dhaqaale, haday noqoto mid amni, haday noqoto mid dawladnimadeena oo daciif ahayd oo markaas la ku meel gaar ka soo baxday. marka yani aaraa kala duwan ayaa shacabku iyo concern badan ay ka qabeen dad badan oo kamid ah. damacyo shisheeye oo isuwan ayaa doonay inayna duudsiiyaan qayb kamid ah baddeena, kuwaasi oo isugu jiray qolo baddeena sheeganaysa iyo kuwa u shafeecaya. shacab iyo dawladba waxaanu jeexnay waddo cusub oo ay bidhaansan doonaan shucuubta kale. waxaanu diidnay inaynu ka tanaasulno taaka kamid ah dhulkeenna. ma jiro qiimo goyn kara qurub kamid ah ciiddeenna. waxaan aaminsanahay in dawladda Kenya iyo dadka shacabka reer Kenya ay ka qanacsan yihiin ama ay og yihiin inaysan wax dan ku jirin in xiriirka labada dal xumaado. waxaan ka shaqaynaynaa si kasta oo suuragal ah in aan dhankayaga aan ka shaqayno sida xiriirka u wanaagsanaan lahaa, laakiin hadday dhankooda ay diidaan wixii kale oo yani nabaddu ay ku hagaagi lahayd, dawladda Soomaaliya waxay mar walba u taagan tahay difaaca dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda iyo maartay biyaheeda dhul iyo cir iyo badba. tobankii sano ee la soo dhaafay muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa hamigoodu ahaa in maanta oo kale ay joogaan maragna ka noqdaan halganka guulaystay ee ay soo unkeen. waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba qareenadii iyo khubradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan Abukaat Muune Sharmaan iyo Allah u naxariistee injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad uga haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan. Saalixi allow yaa salaan dabacsan gaarsiiya, allow yaa qabriga lagu sakalay dib uga soo saara, baddu damaclaawuhu saanyaday inaan saaka ku raynay, allow waa siduu doonayay yaa sax ugu sheega. kiiska dacwadda badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo muddo 7 sanadood hadda socday waxa uu soo maray maraaxil kala duwan. markii ugu horeysay 14kii 2014kii baa dacwaddaas ay Soomaaliya gudbisay markii muran uu ka yimid sheegashada lahaanshaha badweyntaas Soomaaliyeed qaybta inaga aadan ee ay Kenya muranka gelisay si loogu kala baxo hab nabad ah. waxa ay ahayd dood cadaalad ah, xaq ah oo ku dhisan kuna salaysan shuruucda caalamiga ah ee badaha, balse hoggaanka Kenya waxa ay ka cagajiideen in sheegashadooda ay la hortagaan fagaaraha caalamiga ah ee Hague, iyaga oo muddadii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017 bilowgeedii ku doodayay in maxkamadda cadaaladda adduunku aysan xaq u lahayn garqaadka dacwaddan. tani waxa ay bilow u ahayd taxana qorsheysan oo ay madaxda Kenya ku doonayeen inay ku carqaladeeyaan gardhiibashada Soomaaliya
iyo in barqacad la ballamiyo badda damaclaawuhu saanyaday. Kenya meeshii laga sugayay inay dacwadda ka soo jawaabto waxa ay samaysay preliminary objection wax la yiraahdo ama ishortaag hordhac. Ishortaagaas oo ay ku sameynaysay ku dureysay ikhtisaaska maxkamadda ama maxkamadda inayna awood u lahayn dhageysiga dacwaddan inay qaado. Sababta ay ka dhiganaysay iyadoo cuskanaysa sidaan horeyba kugu sheegay is-afgaradkii ama MOU-gii ay sida khaladka u fasiratay conceptiga khaladkaana ay ka qaadatay iyadoo hor istaagaysa oo dhahaysa annaga iyo dowladda Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay in aan murankan ku dhameyno wada hadalkii baan rabnaa maxkamadduna awood uma leh maadaama wada hadal lagu dhameynayo arrinta sharciga sida ku qoran. waxaa bogaadin mudan baarlamaankii sideedaad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno kadib markii ay ilaaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysa iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magac dareen dhaxal dhowr. doodihii Kenya waxay ku saleysnaayeen in Soomaaliya iyo Kenya ay ku heshiyeen nidaam ay ku wada heshin karaan ay saxiixdeen oo aan loo baahnayn in maxkamad kiiskan la keeno. waxay kaloo yiraahdeen Kenya Soomaaliya iyo Kenya waxay member ka yihiin xubin ka yihiin ururka la yiraahdo UNCLOS oo ah UN Convention for the Law of the Sea. magarate sidaas darteed looma baahna yiraahdeen kiiskan in la keeno maxkamadda. marka maxkamadda markay dhageysatay dood dheer kadib Kenya marka waxay ku dooday doodii waxay bilaawday marka sida kaliya ay maxkamadda go'aan ku gaari karto waxay noqotay in ay markaa fiiriso memorandum of understanding kaas heshiiskaas ay Soomaaliya waxay tiri anaga ma aqoonsan memorandum of understanding sababtoo ah waxay yiraahdeen baarlamaankeen lama soo marsin. magarate Kenya waxay ku doodeen paragraph 6 oo memorandum of understanding inuu yahay heshiis labada dawladood ay wada galeen oo iyaga isxallin karaan aan loo baahnayn maxkamadda inay soo dhex gasho haddii loo baahdana UNCLOS ay dhexaadin karto. shacab la daaladhacaya duruufo adag iyo dowladooda oo ka soo kabanaysa sanado badan oo burbur ah uma sahlaneen inay difaacdaan hantidooda badeed oo xeelado sharci iyo dimandaabyo siyaasadeed lagu doonayo. hoggaanka Kenya waxay iska indhatireen qiimaha darisnimada iyo danaha isku sidkan ee labada shacab ee walaalaha ah iyaga oo taa beddelkeed faaska iyo hangoolka u qaatay goynta jiridda xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood si ay jaaha uga beddelaan hoggaan Soomaaliyeed oo ku fara adeegaya baddooda. Please welcome the President of the Federal Government of the Republic of Somalia. madaxweynaha Soomaaliya wafdi uu hogaaminaya anna aan ku jiray meesha ayaa waxa uu shir naloogu yeeray Sisi uu qabtay in maaragtay madaxweyne Farmaajo iyo Kenya uu dhaxgalo bal arinka isku haystaan waa taa ogeedeen mataqaana in maaragtay xiriirkii xumaaday sidaas darteed markuu wuxuu yiri bal African Union ahaan madaxooda bal labada madaxweyne sukeen shirka wuxuu ka dhacay New York waagii oo shirkii oo UN-ka markii sanadkii la qabto September dhamaadkeeda ahayd marka madaxweynaha shirka wuxuu ka muujiyay mowqifka badda. Kenya waxay qaaday tallaabooyin ugub ku ah curfiga siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka ayadoo isku dayday in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkeena kadib markii ay olole xooggan ka bilowday xarunta qaramada midoobay kaasi ujeedkiisu ahaa in Soomaaliya lagu soo rogo qaraarka tirsigiisu yahay 1267 oo ay Kenya uga dan lahayd inay ku xayirto kulana wareegto hantida ganacsada Soomaaliyeed iyadoo lagu suntayo argagixisnimo. xukuumadda Kenya waxay qaaday jid kasta oo ay ku carqaladeynayso
habsami u socodka dacwadda badda isla markaasna ay ku doonayso in qol mugdi ah loogu xalaaleeyo baddeenna iyadoo ka dhex bilowday ururada heer gobol heer qaaradeed iyo heer caalami ah hagardaamooyin lagaga been sheegayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo halgankii xaqa ahaa ee aynu ugu jirnay difaaca baddeenna annagoo u marayna dhabbaha cadaaladda iyo xaqsoorka ee ay dunidoo dhan ku midaysantahay dharaarihii loo soo maray guusha kolkan waxa ay na xusuusiyeen casharadii aan ku tilmaanayn taariikhda inta la hayo iyo inta aan lahaynba oo ah geesiyaal maalinta ay adag tahay midaysan kuna dharga gobonnimada kolka gaajadu taallo bogaga hore ee maalmihii ay taagneed dacwaddu waxaa ku xadhan in diblomaasiyadda Soomaaliya ay u babac dhigtay qorshihii halista ahaa ee hoggaanka aan dariska nahay ee Kenya ay soo maleegeen kadib markii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ay ka dhex bilaabeen ololo lagu curiyaaminayo dhaqaalaha dalka Soomaaliyeed qaraarka tirsigiisu yahay 1267 oo hoggaanka Kenya ay doonayeen in lagu soo rogo Soomaaliya waxa uu muujiyay damaca iyo cadaadiska aan xadka lahayn ee ay ku wiiqayaan go'aanka Soomaalidu ay ku difaacanayso baddooda President Uhuru ayaa wuxuu lahaa khudbadii UN-ka wuxuu meesha ka akhriyay in Soomaaliya iyo Kenya ay maaragtay banaanka ay ku wada heshin doonaan taana madaxweynaha khudbadiisii uu ku lahaa maalintii labaad wuu cadeeyay in maaragtay Kenya iyo Soomaaliya keeskooda badda ah oo maxkamadda ICJ aan laga soo qaadi karin Soomaalina waa u cadeey adduunyada waa u cadeey culeysyo fara badan oo markaa ka dambeeyay haddana oo ka yimid dhinac kasto ayaa madaxweynihii ku adkaystay inuusan keeskaas faraha la gali karin ay maxkamaddu taalo waxaana la dul dhigay culeysyo diblomaasiyadeed iyo cudud dhaqaale si aan u liicno damaclaawuhuna u libo waanu diidnay aamus iyo adkaysi ayaan uga jawaabnay danihii is urursaday ee ku heshiiyay inay xaqeena naga weeciyaan shirkado ay ku jireen badda oo ay baaris wadeen qaarkood gabagaba marinayeen ilaa 6 shirkadood baa ku jiray 6 shirkadood marka oo Eni iyo Total iyo Start Oil iyo Andraka iyo Zarira iyo oo wadamo badan oo maaragtay laga kala leeyahay bay ahayd kulli shirkadahaasi way ku jireen doorkii marka xafiiska xeraaliyuhu ku yeeshay waxay ahayd inuu shirkadahaas ganaax ku soo rogay si degdeg ah amrayna inay uga baxaan hadii kale aan maxkamad geynayno laba marka fayl baan ugu gala furmay mid ah in dawladda Kenya iyo maxkamadda caalamiga aan ka dacweyno oo xuduudka ay sida khaladka u sheegatay ah iyo inaan shirkadihii iyagana la dagaalano oo ka saarno dalka labadiiba insha Allah waa ku guuleysan shirkadihiina hal baa ku harartay waagi hore hadana waa ka baxday marka shirkadihiina adigu alxamdulillah waa ku guuleysanay inay ka baxaan muddo badan oo Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeyay muran badeed waxaad moodaa in la soo gaaray gabagabadii murankaas kolka kor laga eego goobta saddexagalka ee la sheegay in cabirkeedu yahay 100,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran kuna taala cirifka badweynta India ayna ceegaagaan saliidda iyo gaasku maanta laga bilaabo Soomaaliya waxa ay xor u tahay adeegsiga xayndaabka baddeeda ee maanta loo xukumay halbeegyada lagu qiimeeyo shucuubta dunida waxa ugu horeeya sida ay ugu midoobaan difaaca danahooda guud iyaga oo meel iska dhigaya kala duwanaanshaha siyaasadeed qiimaha halbeegaasna waxaa dhadhan u yeela sida dhinaca ka soo horjeeda uu uga shaqeeyo kala dhantaalidda bulshadaas iyo xudxudashada siyaasiyiinta bahda warbaahinta kala duwan iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda iyo dalka gudihiisaba jooga koonfur iyo waqooyi run ahaantii aniga meel aan la igala soo xiriirin markii aan maxkamadda gunaanadkeeda joognay ee aan doodeena ka jeedinayay ma ay jirin waxay tusaysaa Soomaalidu dal jacaylkaas wadaniyadaasi waa la baahan yahay loo baahan yahay dalkeena inaan dib ugu dhisno oo muwaadinimada iyo wadaniyad jacaylkaasi inaga muuqato gacmaha isqabsano caqabadaha aynu hortaagan aynu uga gudubno oo aynu dal dhiskeena iyo dawlad dhiskeena Soomaaliyeed kamira dhalino Soomaaliya meeshii taagnaan jirtay iyo halkay taagnaan jirtay iyo siday ahaan jirtay insha Allah aynu ku soo celino guul baan haddana rajaynaynaa iskarabdaaka shacwinaha Soomaaliyeed mar walba waa u baahannahay waa dalkiinii waa dadkiinii waa dhulkiinii waa baddiinii idinkaa iska leh Soomaaliba iska leh waana in mar walba muwaadin kasta uu iska saaro waajib
waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay xasan sheekh maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya. waxaa guuleystay cadaaladda iyo sharciga, waxaa miro dhalay halgankii dowladda, hiigsiga aqoon-yahanka iyo hiiladii shacabka. waxa uu ahaa halgan cadaaladeed ku astaysan aragti fog, aqoon durugsan, dhiiranaan, wadaniyad, ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dadka iyo dalka. aan run ahaantii rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo dhammaan qof kastoo Soomaaliyeed oo door ku lahaa ama kaalin ka geystay ka ciyaaray door firfircoon oo muwaadinimo iyo isxilqaanba bilowgii iyo dhammaadkii dacwadda badda. waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa Allah u naxariistay Maxamed Saalixi oo aan 3 sano barkaama aan anigu kiiskan hormuudka u ahaa wada shaqeynay 4 sanadood iyo barkii u dambeeyay oo runtii isxilqaan weyn iyo mas'uuliyad gaar ah mar walba iska saari jiray qayb weyn oo dacwadda geedi socodkeeda ah noo qaabilsanaa. Allah u naxariisto baal dahab uu taariikhda ka galay waana wax uu dalkiisa u qabtay dadaal uu dalkiisa u galay. waxaan uga mahad celinayaa gabadha Muna Sharmaan oo dacwadda bilowgeedii iyo qareenadii hawl walba door weyn ku lahayd mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee kaalinta muhiimka ah ka soo qaatay bilaabay oo madaxweynaha hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud كو كيهاي حراليه وجود قرنك هراء أحمد علي الظاهر يعني سجن أمه هذه الأمنية أمباسدور علي فقي وقيب وين كلها سفير كان نيويورك أبو بكر وسير هذا إني أرمها الدمدة كذا الدوانا اللي يجا بلوغ إلا هذا دورك كلها بيلة عبد السلام هذلية يوسف جرات oo bulshadii reedka ahayd ka qayb gashay bilowgii ahaa haddana noor team gudidii ergadii Soomaalida ayaan tagnay kamid ahaa markii wasiirka arrimaha dibadda waxaana door fiican ka ciyaaray Axmed Ciise Cawad wasiirkeena hadda Maxamed Cabdirasaaq safiiradeena doorka in uu ku leh iyo bahda wasaaradda arrimaha dibadda madaxweyne Farmaajo oo mahaantii 4 sano iyo dheeraadka xil gaara oo weyn iska saaray oo jawaabaha aanu bixinayno nala akhri jiray nalana hubin jiray aniga iyo qareenada intaanan ugu dambeyn anigu saxiixin aan loo dirin maxkamadda cadaaladda adduunka waayo dokumentiga maadaama anigu agent of Somalia state aan ahaa markaan saxiixa iyo gudbo ayuu noqonayaa dokumenti rasmi ah oo gala faylkii Soomaaliya ay ku lahayd maxkamadda cadaaladda adduunka marka door muhiim ah oo weyn ayuu iska saaray xiriiryaha guud ee qaranka hadda oo مدير حراري أو هاقيد كلها سليمان يسوون دور كيسة كقاطع يقارنوا الله يرجع كل الدول يقون يهنا صوماليات وفكر كي الرأي كنقول بيرين هاي مرولبا يبهذا الصحافة ده صوماليا سوشيال ميديا كفوجن براه بالشدة كل الدول دور كذا كقاطع لما أنتو وعن ومهد علينا وهل كندير أو عي صومالي سوق شيء تضبط على السنوات قفوا لمن دور كي كجعادنا وكقاطع hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa mahad mudan maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hiilisay sareynta sharciga waxaa bogaadin mudan madaxdii iyo aqoon-yahankii Soomaaliyeed ee u huray maskax maal iyo waqtiba waxaan u dhaaranay inaan ilaalino ammaanada aan u qaadnay shacabka Soomaaliyeed damiirkeena marnaba nama siinayo inaan dhaxalka jiilasha soo socda ku bedelano dana shakhsi ah ama dana siyaasadeed ama mid dhaqaale iyo mid kursi oo madaxleedkiisa uu kooban yahay waxaanu door bidnay inaan marnaba aynan qaadan gunnimo dharag leh aanu ka dooranno gobonimo gaajo leh talaabo kasta oo aan qaadnay iyo go'aan kasta oo aan gaarnay waxa halbeeg u ahaa ilaalinta qabka Soomaaliyeed qarnimada Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed iyo sharafka dadka iyo dalka Soomaaliyeed haddaynan ku dayan adduunka badbay guudkeed dageene haddaynan ka samaysan daaro dalxiisku intuu yimaado haddaan daawashada la yaabin